بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين أصحابتا ميل كستو أجوكتين سو دواada فائزز وورلد meel kastoo adduunka aad ka joogtiin waxaa idin leeyahay farxad iyo caafimaad ku jooga insha Allah walaalahay soo dhawaada maanta waxaan noo hayaa maaska oo kafayiin oo timaha dheereynayso maaskadan waxa waaye sirta oo carabta oo khalijiyaadka waaye asxaabta waxa waaye sirta carabta timaha dheer oo badan oo quruxda badan waaye sirtooda waaye wax oo iska basiid ah oo sahal ah oo guriyeen noo taalan waaye waxa aan ka sameysanayno waxa waaye maaska oo waxa waaye oo qaxwo ما شاء الله أصحابتي الغالية إيه ماسك داني تود ماسك أدو في عنواي أو تمها قوة سيسو أو ديريسو أو بديسو أو جلعيسو ما شاء الله تبارك الله يعني قحوة الفائدة دي تمها أولاد هاي وحلا سوكو بكرمها أصحابته وحكى له قدر سنينا قرفا قدر سنينا يعني إن شاء الله كذلك أركدونتين وركسود وهذا ولا هاي غالية إيه سيدوك الفائدة دي تمها أولاد هاي إن قرفها إيو qaxwada buu idin kaga sheekay doona insha Allah sidoo kale waxyaalo kale aan ku darsanayna marka waxa idin leeyahay asxaabteed qaaliga soo dhawaada insha Allah ka faa'iideysta waatana asxaabta maaskada inta aan ka sameysanayno waxa waa intaan iska basiidka aan ka sameysanayna haddana waxa waay ma sha Allah maaska cajiib oo timaha marka ugu horeyso isticmaashid isla marka jawaabta ku siinayso arkaysa timahaaga si isku bedeleen yani timahaaga timo quwad leh noqonayaan oo jilaac oo badan oo kala iska arag marka meesha waxa noo yaalo laba xabo ukun iyo nus bakeeri oo qaxwo iyo qorfahan waxa wax yar lanka isticmaalaynaa iyo saliid qumbaha intaas waa inta u baahnaa oo ka sameysanayn insha Allah asxaabteeda soo dhawaada marka hore waxa sameynaynaa labada xabo ukunta waxa ku soo shubanaynaa baaquliga kadibna waxa way ukunta qasaynaa si fiican u qasaynaa ukunta markay isku qasanto ay si fiican u qasanto ka bacdi alaabada kale aan gadaal ugu darsanaynaa insha Allah كنت وحواي أصحاب من نوع أتمها ديرية أتمها بحية واي ماسكدان أو مانت أن سميسنين إنه وحواي أصحاب إن ماسك أتمها ديريسو أتمها بحسو يعني هدي أطوس ودنسي أو رخصيه تمها كوك ديرينيسا وكنت وحواي أصحاب تتمها وي بحسا وي ديريسا لأن بروتين بدن الليد هاي بروتين كان تمها وي كوبحان قيب تعدى وحواي بروتين كأد وكوبدن قيب تجالها هنا وحواي برضو بروتين الليد هاي لكن سيد وحواي دهون كوبدن يعني دفن كوبدن ما شاء الله marka ukunta waxay naga saacideysaa in timaha ay noogu baxaan ee timaha ay noo dheereyso haddana waxaan ku darsanaynaa qaxwadana waxa waaye nus bakeeri oo qaxwo qaxwada marka waxa waaye asxaabta gabdho badan ay soo weydiiyaan qaxwada waxa waaye bunka waaye oo caadiga oo anaka aan qaxwo ahaan u cabno waaye bunkaas waaye Nescafe ma aha Nescafe miya gabdho badan soo dhahan marka Nescafe ma ahan waxa way qaxwada caadiga oo subaxdii anaka aan cabno oo bunka laga sameeyo way kaas way qaxwadaas ma sha Allah aad uga fiican Nescafega qaxwadaas waxa way timaha iyo wajiga iyo jirka oo dhan waa loo isticmaalaa qaxwada waxa way iyadana timaha way dheereysaa waxa ku jiro maada la dhahay kafayiinka marka asxaabta waxa way timaha waa dheereeyaa go'itaanka oo ka ilaaliya nafaqo oo siyaatinta marka qaxwada waxa waaye timaha way dheereynaysaa way badanaysaa waa jilcisaa jilaaci xataa ka dhigaysaa quwaday siinaysaa timaha isku dhagdhago isqa qabsado aad iyo aad ugu fiican tahay qaxwada tinta way kala furfuraysaa waxay ka dhigaysaa timo oo toos ma sha Allah yani timahaaga waxay ka dhigaysaa timo caafimaad loo qurux badan haddana waxaan ku darsanaynaa qorfahana waxa waaye qaadada yarta waa isku qasaynaa marka si fiican isku dhexgelinaa isku qasaynaa qorfaha waxa waaye asna timaha faa'iido badan uu leeyahay timaha waxa waaye go'itaanka uu ka ilaaliyaa timaha meesha ay ka soo baxayaan oo ku xoojiyaa oo quwad u yeelaa jilicna waa ka dhigaya timaha waa jilciyaa naacim oo ka dhigaya ma sha Allah qorfaha asagana aad iyo aad u fiican yahay haddana waxa ugu dambeeyaan ku darsanaynaa saliid qumbahan waxaan ka isticmaalaynaa 4 qaado oo saliid qumbahan ku dareynaa aan kula qasaynaa insha Allah qaxwadan waxa waa asxaabta qaxwo oo aad loo soo shiiday oo aad u shiidan oo sida burki camal oo si fiican loo shiido qaxwada marka waxa fiican markii oo isticmaalaysa inay ahaato qaxwo oo sida powderka camal yani aad u shiidan qaxwadan intood qaasay waxay u tahay qurxinta waxa la dhahaa qaxwo Turkiga dhahan
marka waxaa loo isticmaalaa timaha iyo jirka iyo wajiga waa loo isticmaalaa. marka qaxwo waxa waaye oo budo laga soo dhigay sida burka camal laga soo dhigay. haddana khalaas waa maaskada diyaarisaa noogu tahay maasha allah. isticmaalkiina waxa waaye marka hore timahaaga nadiif ah marinaysaa, markaa marisid si fiican u marinaysaa, isku gaarsiinaysaa, kabacdi waxaa ku xiraysaa bac ku xiraysaa, waxaa ku haynaysaa adiga 2 saac meelaha situt. yacni lagu daahinayo sida maaskaadka caadiga maaskadan waxa waaye qaxwo waaye, waxa waaye kafeyn ay leedahay, dhiigay socodsiisaa. marka waxa waaye waxaa ku haynaysaa adiga ilaa 2 saac ku haynay, 2 saac kabacdi waa iska dhaqaysaa insha allah. isbuucin waxa waaye hal mar la marsanaya, hal mar oo marsatid kugu filanba insha allah. marka waxaa idin leeyahay asxaabteeda qaaliga ka faa'iideysta insha allah. isticmaal maaskadan. maaska waxa waaye aad iyo aad u fiican oo timaha bixiso, timaha dheerayso. marka ugu horeyso isticmaashiina idinka arki doontiin insha allah, idinkaaba kasoo bixi doontiin jawaabteeda. waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin ka wada heli doontiin. waxaa ku aragtiin commentiga noogu soo qora insha allah. aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan. videoga like dhaha, share na u dhaha asxaabtiina insha allah. waxaa noo balan videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa khayr badan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.